السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابة قالقة ظهر وناكسن صباح وناكسن هبين وناكسن وقت كستوي كوتا وقت وناكسن ولا لهيقة وناكسن سودو هذا أيا إذن الله هيبا وقتينا وقت غير قبع الله يذكرني وقت بركيسنا الله نعوض لي آمين يا ربي. ما شاء الله تبارك الله. دكان كان كيف ام علينا مركة إن شاء الله كيف ام كدرسكين أنبا ماركتي مقالة أن دقناهاي تلبرق نورد أن كدقناهاي دكان كان أيام وحو سوج جبيي وحيالها قار أو سوج بشيء معنا كل سو ما جبينين لكن سيدا باستا دو كالي سيدا ماركتي وحيالها قار كود سريدها قار سريد كستا معهن أيو سوج جبيي maanta marka maasha allah waxaan sidaa marka saxaabtaada qaaliga la wadaag inta meelahan dhadhow joogto oo kasoo gada karta wixii uu soo jebiyey khayr allah siiyo. gabar waxaaba jirta markasta anagana maaragtay qof walba qofta kale waa inay u gudbiso marka uu wax soo jebiyo sababtoo waqtigaas anaga maalin walba markuu qaaliga yahay wax ka fiican markuu jaban yahay inaan la isu gudbiyo gabdhahaas ay uga faa'iideysan karaan looga wada faa'iideysto iyo qof walba oo danaynayso oo ka gadanayso baastada hadda soo jibiyay rabadaana soo socdo ha laga soo gato waxyaalaha cuntooyinka qaar oo sidii ii sheeg bahashan la yiraahdo maxaa la dhahaa hadda kuwan aa ujeedaan hadda aan ka hadlaayo ma soo jibin barayskooda caadi waaye hadda maaragtay ma ogiimo kan hadda ma soo jibin laakiin wuxuu soo jibiyaa kaaska rootiga la marsado rootiga la saarto wuu soo jebiyey anaa kasoo gatay marka qaaliyo ahay haddana maaragtay waa koortin ha laga soo gato baastada waa koortin qudaartoo dhan qudaarta banaanka taaloo dhan badankooda waa koortin marka insha allah bismillaah kariim waxaan saddex gabdhaha walaalaha la wadaag si ay uga faa'iidaan waxa aad ka gadanaysid oo aad u jeceshahay inaad aragtid aad macnaha markuu jaban yahay lagu soo sheega u jeceshahay gabdhaha asxaabtaadana u sheeg saa darteed ayaa idinkugu soo duubay asxaabteeda quruxda badan gabdhahayga dariskayga insha allah hadduu rabbi raali ka noqdo markasta wax soo jebina insha allah waa idinla socodsiin doonaa haddaan anigaba ogahay haddaan ogeyn ayaa daran haddadaana aniga ogeyn insha allah adinkana sidoo kale marka gabar khayr allah sii mar walba ila socodsiisaa jirta markuu wax soo jebiyo hilibkoo kale kiibkoo kale markuu soo jebiyo insha allah bismillaah kariim waa idin la wadaagi doonaa waqtiyaashaasna markaan waqti u helo fursad u helo xulbu fursada ka horeysa iyo waqtigiina ilaahay ku haleeshiiyo marka insha allah waxa markay qaar yihiin ma gadan karna anaga xaaladu iska adag tahay cuntooyinku iska qaaloobeen wax kasta iska qaaloobeen laakiin isla cuntadii oo shan eero ahayd marka hadda 2 eero laga dhimo oo 3 eero laga soo dhigo waa inaan isku buugaadinaa oo saddex aan dhahnaa aan gadano aan maaragtay ka faa'iideysano anaga aan badan noogu jirta inaan isu faa'iideyno hadduu rabbi raali ka noqdo hal shay oo hal eera kaaga soo noqoto adaa faa'iido ku qabo dhibaato ma kale ma jirto faa'iido ku qabtaa saas darteeda gabdhow waxaan idin leeyahay qudaartan uu soo jebiyey wixii ka anfacayo ka soo gado uu soo jebshay baastada aadan ula dhac baastooyinka uu soo jebiyey aanay hadda kama soo gadan laakiin insha allah waa kasoo gadan rabaa marka hadda wixii aad rabtiin oo aad isleediin waa jaban tahay kasoo gato saxaabteyda quruxda badan weliba gabdhaha dariskayga ayaan la hadlayaa insha allah bismillaah kariim marka maasha allah salaamigan hadda ma soo jebin waa qaali waa bareyskiisii wax la gedi kara ma jiraan wixii oo dhan waa qaaloobeen kana ugu roon kan ayaa ugu jaban insha allah haddi maaragtay wixii qof walba wuxuu jecel yahay asaa og inaada cuninaaba laga yaabaa salaami oodanba u baahnayn marka laakiin kaaska rootiga la marsado kaaskan hadda aad arkaysid uu soo jebiyey maasha allah kasoo gata kana xataa bariiska lagu firdhiyo amba baasta lagu firdhisto oo shiidan uu soo jebshay asigana saas ayaan arkayay raali noqda marka insha allah saxaabtida quruxda badan marka intaas idin la wadaagay waxaan lahay gabdhaha walaalaha intii awoodo ha ka faa'iideysatay markaas ilaahay haleeshiisiyo hadda dukaanka wuxuuba keenabo hadda wuxuu jaban hal maalin kaliya inay noqdaan oo markaasba isla markiiba oo ka qaado macnaha koortinka isla markiiba oo ka qaado waa koortin ku leeyahay isla markaas daatay weyso koortinka waa ka bixiyo
koortig waxaan ugu oqon jirna anaga koortin oo wiiga dhan hadda waxaas ma jiraan, waa la iskala baxa. adduunyadii way tagtay talaabsatay. maalin gudaheeda laga dhigaa, maalintaas maaragtay wixii oo yaallo unbuu ka dhigaa. haddaad maalintaas nasiibkaada ilaahay ku haleeshiisiiyo waa ku kaasaa. haddii kaloo ilaahay ku haleeshiisiinina hadda maba haysatid, waa ay ka dhigantaa, mabaad ka faa'iidaysanay ka dhigantaa. adiga nasiibka uu ku dhaafay, marka calafaa la cunaa, problem ma jiro. wixii calaf ku leh maalin hore aniga hadda maxaa igu dhacday ayadoo saasoo kale wuxuu soo jebiyeen. hadda gabdhihii dhan u sheegsheegaa taga aan leeyahay kib uu soo jebiyey oo kib macaan oo weliba soo jebiyey oo kan yaryar. tagasaan ulahay aana weli tegin. isla maalinta kale markaan tegay shalay la ahayd la dhaha sorry. marka waa kaasaa wax calaf ku lahaa qaata anigii loogu hor sheegay, anig kuwan u sheegaa calaf u yeesha. marka waa saas insha allah, waxa barbaleen laakiin ma jiro wixii calafaa ku leedahay. geedkan xataa wuu soo jebiyey, hadda aan idin tusaa. saliidan bahashan wuu soo jebiyey mujeedin. wuxuu kasoo dhigay 1 eero, 2 eero ayay ahayd, 1 eero kasoo dhigay. marka maasha allah waa broqol 1 eero kasoo dhigay. waxyaalo aad u babaahantuu soo jejebshay insha allah. marka haddaad dukaanka dhex gasho adiga adaa fahmaya waxaad u baahan tahay waxaad u baahnayn. iyo wuxuu soo jebiyey wuxuuna soo jebiyey meeshaasaan ku kala arkay. marka saaxaabta quruxda badane fiidiyoga dood soo gaaray insha allah. like lay saaro, commenta qurux badan. tan xataa wuu soo jebiyey, broqolkan wuu soo jebshay. marka alaabtan ka soo gata insha allah. broqolkan waa asoo madow iyo asoo cadaa jiro. asoo cad waa kanaha, asoo madowbana waa midkan hadda aan ku tuso oo midkii kale ku tusaay. kulli dadka sacaatayna u fiican tahay. kiisa madow gadanaysaa amba midkan kaleba, laakiin kiisa madow ayaa aad u fiican qofka oo maaragtay kulli wax walba madow kaas misigadiyo inta taagan waa. marka maasha allah qofka raba inuu sacaateeyo kaas madowgan kula talina aniga inuu cuno. broqolka madowga aad u fiican yahay oo maaragtay adigana ku dharjinaa baahida dhankaaga qarina macnaha. caafimaadna wuu yahay maasha allah tabaaraka allah, mana ku cayileysid oo wax faad ma ah. marka weydinkaasaha geedaan dhan soo jebiyo ujeediin. saxaabta quruxda badane dukaanka tartiibkaa u tag, lugtaada ku tag, iska soo fiirso wixii ka anfacay. ma baasta rabtaa, ma wax kala rabtaa, wixii ka anfac waa ku kaas. ani gabdhaha walaalahay u danaynayaa inay wax jaban soo helaan. ani waa jeclamaano inuu la ii danayo oo wixii aan ogeyn la ii sheego. faroodkan waa kana uu soo jebiyey liintan oo dhan. kii waa qaara bolol laakiin waxaan bololka inaa kala baxee ayaga dhan ma fiicno. laakiin waa fiirsanaysaa raqiiso kasoo dhigay kulligood. marka saxaabta qurux badan fiidiyooda idin soo gaar insha allah bidmillaah kariim. walaashii macaan walaalkii macaan like iyo soo saar. hadduu kugu cusub yahana subscribe-kana igu dar, like iyo subscribe-ka intaba iyo share intaba saxaabtaada kale la wadaag. igu share garay haddaad awoodad iimahaaga, facebookaaga, facebook page-kaaga, wixii aad whatsapp-ka inaa igu share garayso saxaabtaada la wadaagtid. yaa usoo saara abartay usoo saara walaashay dheh wixii aad jeceshahay. marka waa ku kaasahaa khayr badan ayaa idin dhaafa saxaabteeda quruxda badan. waxaan isku dhaafnaaba mar walbaba aan iska maqalnaana waa khayr, barwaaqo iyo bashbash insha allah. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.